marka leeyahay bani aadamka sidiisa bal iskuma haleyn karo waa arin xaqiiqa bal ka waran qof aad jecelaad dartiisana indhaha aad u weeday marka aad garabkiisa u baahnayd haddii uu garabkaaga faarujiyo waa arin xanuun badan tani waa qiso ku dhacday gabar Masaari ah magaceedu waa Saara Maxamed waxay is jeclaayeen wiil lagu magacaabo Yuusuf gurkoodana waxa ka dhinnaa maalmo kooban oo kaliya labadooda oo gaari wada saaran ayaa waxa soo weeraray qolo burcada xabadan ay ku fureen xabadaha wiilka ay ku dhici rabeen gabadha ayaa isku dhigtay labadoodaba dhaawacyo fara badan ayaa soo gaaray inkastoo gabadha dhaawaceeda uu zaid ahaa xabadahaasna waxay ugu dhaceen wiilka dartiisa ayadana dhaawac aad weyn ayaa soo gaaray oo madax ay xabad kaga dhacday taasina waxay sababtay maskaxda inuu dhiig ku furmo indhahana ay ku beesho haddaba wiilkii dhaawaciisa uu iska yaraa wuuna soo kabtay wuxuuna dhahay ugu dambeyn aniga kuma rabo naag camool lama rabo micnaha haddii aan guri ku geysto waxaad ii taraysaa beeraatee malaa maxaan ku gursanayaa arooskana sidaas ayay uga baxeen horn ahaantii waa arrin xanuunkeedana aan la xamili karin anaga markana la fiiriy rag ahaan dumarka waxaan u geysanaa khiyaanooyin fara badan khiyaanooyinka ugu badan ee noloshana gabdhaha ayaan u geysanaa waxa ku dhib qaba gabdhaha oo kaliya gabdhaheena Soomaalida gaar ahaan waxaan uga digayaa in ay ka feejignaadaan waxyaabaha qaar ee qof bin aadam dartiisa u sameynayaan bin aadamku wuu isbedeli karaa waqti walba marka sidaa darteeda naftaada oo kaliya ka adkaaw qof bin aadamna ku tiirsanaan